maalinteeda la soo bandhigi doona tuhuma aad iyo aad u ballaaran wixii maalin uu airport ka dhacay waxaan rabaa inaan idin sheego wax kasta oo airport casri ah oo leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu airportkeeda leeyahay runway-ga diyaaradda markay ordayso oo kacayso ama soo degayso ilaa terminalka airport qofka markuu soo galayo waa loo jeedaa waana record garaysan tahay laakiin technology qalabkii wuxuu u qaban lahaa waa qabtay dadka bini aadamka waxay qaban lahaa yaa qabanayo kaamirada iyo screenka iyo inta gacmo leeyihiin inta ku soo celiyaa inta dhaxmar ma ku dhahaayeen adiga waa ina marta markaad meeshaas marto ku dhaha waa qofkan waa nadiif iyo nadiif ma ku dhigi kara koo wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligence ku galana waa negligence kii wax ka ogaayna waaba waxbuu ka ogaay waa dambile labaduba dambile waa dambigooda ha kala bata hadduu doono qofkii meesha la fadhiisiyey mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaabiyey haddowna shaqo ku lahayn waxa meesha ka jira xataa iskriinka oo alaab marayso wiil gabadha ama wiilka ilaalinaya hadduu xagga inta soo heblow muxuu ahay dacaasho ma aragtay baan dhaweyd meesha tacsidii ma ka qayb gashay xagga u sii jeesto oo banki meesha maro asaaka mas-uula lama dhahayo shaqo ku malahayn iyo ma garanayn iyo muxuu ahay saan waay iyo cudurdaar ma leh meel amnigeeda la sugayo markaan tagno inaan annaga iska bilaawno waa wax sida saxda meel iskriin la dhaxmarayo haddaan tago kow inaan aniga suunka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rida geedo aan iraado haye hala marsiyo dhaxmaro dhiiq ku noqo haye inta waxay qalbi bixi ku noqo laakiin hadda iskriinka inta yaallo oo wasiirku dhinac maro oo wasiir ku-xigeenku dhinac maro wasiir dowladda dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka jananku uu dhinac maro oo kan yaa la celina maxaa ku qancinaa ninkan ama gabadhan meesha taagana dadka ilaas in maalin walba dadka celiso qofkii lagu yaqaano kula socdana sidaasaa la yeelaa waa la marina waxaa inaan annaga mithaali noqono oo mujtamacu nagu daysado waa sida keliya waxaan aad iyo aad u codsanaa xukuumaddana si cad ayaan ugu sheegay baarlamaanka golaha shacabka qiimaha sharafta leh waxaan ka codsanaa dad lagu daysada noqda markay timaado amniga